maanta waxaanu galaynaa lecture aad u qiimo badan oo ku saabsan ardayga wanaagsan. run ahaantii su'aalo badan baa la isweydiiyaa. ardayga wanaagsan waa kuma? sifooyinkuu leeyahay waa maxay? goormaan ee qaadan kara? sidaan u noqon karaa ardayga ugu sarreeya galaaska? sidee baan imtixaanka ee u wada keeni karaa? sidee baan khabiir ugu noqon karaa koorsada iyo maadada aan qaadanayo? mustaqbal wanaagsan sidee baan u yeelan karaa? waa su'aalo aad u fara badan oo arday kasta ku soo noqnoqda. laakiinse ardayga wanaagsan waxaa jira xirfado looga baahan yahay. xirfadaha haddaanu lahayn, adigoo dadaalay, adigoo habeen dharaar soo jeeday, ayaa haddana waxaa dhacaysa inaad qaadato dhacaysa. sidaa daraaddeed khubarada tarbiyadu waxay isku waafaqsan yihiin inay jiraan skills, xirfado looga baahan yahay ardayga. haddaba si kooban xirfadaha maanta haddaynu ugu hadalno, xirfadda koowaad ee ardayga laga rabo waxay tahay ardaygu waa inuu yaqaanaa iskuulkiisa iyo macalinkiisa. iskuulka aad dhiganayso, iskuulku waxa uu leeyahay nidaam buu leeyahay, system buu leeyahay, rules iyo shuruuc buu leeyahay. waxa ugu horeeya ardayga wanaagsan lagu yaqaano waa maxay? inuu yaqaano shuruucda iskuulku leeyahay, waanu yaqaanaa. waa inaad taqaana maxaa lagu ogol yahay, maxaa kaa mamnuuca. waxaasoo dhan wayna ku wada cad yihiin. dembiyada iskuulka dhexdiisa hadday ka dhacaan lagugu qaadayo iyo ciqaabta ka ratimaysa waa inaad garanayso. waa inaad taqaana macalinka maadada ku dhigaya. maalinta ugu horeysu macalinku ku soo galo waa inaad taqaana barataa magaciisa, waanaad garataa. waa inaad garataa oo barataa macalinkan muxuu jecel yahay, muxuu necab yahay, sideebaa su'aalaha loo weydiin karaa. ma jecel yahay xiisada oo socota in su'aalo la weydiiyo, mise waa macalimiinta jecel xiisadu markay dhammaato in su'aasha la weydiiyo. waa inaad ka ilaalisaa macalinka inaad la doodo adigoo raba inaad tusto inaanu wax garanayn. waa inaad macalinka dhegaysataa, amarkiisa waa inaad qaadataa, macalinka waa inaad fahantaa. adigoo arday wanaagsana, adigoo dadaalaya, macalinkaaga haddaad isfahmi weydaan waad dhacaysaa. qodobka labaad waxa weeyaan waa inaad soo diyaargaroodaa iskuulka markaad imanayso. 3 dhinac waa inaad diyaar aad ka noqotaa. ugu horey jidhkaaga waa inaad soo diyaarisaa. waa in dharkii iskuulku laga rabo lagugu talagalay waa inaad soo xidhataa. waa inaad maskaxdaadii nafsiyaadkaaga soo diyaarisaa. maxaa markaa laga rabaa? waa inaad naftaada u diyaarisaa, maskaxdaada u diyaarisaa inaad wax barato, inaad iskuulka wax ka barato, inaad si siyaraas wax u barato. qodobka saddexaad ee muhiimku waxa uu yahay iskuulka markaad imanayso waa inaad waqti hore timaadaa. waa inaanad xiisad kaliya jarin, bale researchada la sameeyay, researchkay sameeyeen jaamacaadka ingiriisku ay sameeyeen, waxay isbarbar dhigeen ardayda kuwa dhaca iyo kuwa baasa saameyn intee leeg buu ku samaynayaa qofka xuduurkiisu wanaagsanaada. waxa la ogaada xuduurkaaga iskuulka inuu wanaagsanaado, dugsiga inaad maalin kasta timaadaa inay qayb ka noqonayso inaad arday guulaysato noqoto. sababtu maxay tahay? sababtu waxay tahay iskuulka maalin kasta markaad timaado, waliba waqtiga ugu hore waxaad timaado, waxaad ku beegmaysaa macalinkii oo xisadii markaa bilaabaya. macalinku xisada markuu bilaabayo wuxuu soo kor marayaa xisaskii ka horeeyay, darsigii ka horeeyay kuu soo dul marayaa, uu ku soo sharxaya, kadib uu kan ku soo xidhaya. wuxuu sheegayaa maanta wuxuu dhigayo iyo sida uu dhigayo. haddii aanad soo xidin waxa waad ka maqnaanaysaa. sidaa daraaddeed waxa la yidhaahdaa qodobada ugu muhiimsan ee ardayga saamaynta ku sameeya mustaqbalkiisu waa maxay? dugsiga maalin kasta inaad soo xaadirto, weliba ardayda ugu horeysa aad noqoto. qodobka afaraad ee dawada raacaya waxa weeyaan ardayga wanaagsan waa inuu ku dadaalaa safka ugu horeeya inuu fadhiisto. bale waxa maanta la isku xidhay oo researchadu isku xidhayaan ardayga oo safka hore fadhiista iyo waxbarashadiisa. maxay keensan kartaa safka hore inaad fadhiisato? inaad si toos ah u aragto macalinka laftigiisa, inaad si toos ah orto samuurada iyo casharku qorayo, macalinka inaad si fiican u maqasho, macalinka inaad weydiiso su'aalaha aad u baahan tahay, su'aalaha ugu muhiimsan kugu taagan toos baad macalinka weydiinaysaa. inaanad meel kale eegin, maadaama macalinku hor taagan yahay waad ka khajilaysaa inaad sheekayso ama meelo kale aad eegto. sidaa daraaddeed researchku waxay tilmaamayaan ardayga wanaagsan waxa lagu yaqaanaa inuu safka hore fadhiisto. qodobka shanaad waxa weeye darsi kasta intaanad iman waa inaad soo akhrisataa oo si fiican u soo akhrisataa oo ka soo baaraandagtaa. waa qodob aad u muhiim ah. qodobka lixaad waxa uu yahay galaaska marka aad fadhiisato waa inaad dhegaysataa macalinka. haddaad rabto arday wanaagsan inaad noqoto hal shay samee. waa in galaaska marka aad dhex fadhido aad isku daydaa inaad maadada fahanto.
haddaad galaaska dhexdiisa maadada ku fahanto waxay kaa caawinaysaa xataa wax akhriska kaa caawinaysaa xataa haddaad waxba akhrin weydo laakiinse aatay qof galaaska ku soo fahmay waad ka jawaabi kartaa laakiinse galaaska dhexdiisa haddaad waxba ku fahmi weydo oo maskaxda macalinka aad siin weydo ood wax kale ku mashquusho oo sheeko aad ku mashquusho ama hadal oo sidaa hay kugu dhaafto waqtigaagii waad khasaarisay kii waalidkaana waad khasaarisay kii macalinka waad khasaarisay imtixaankana waad ku dhacaysaa sababtoo galaaska dhexdiisa inaad ku fahanto ayaa aad u muhiim ah haddaad ku fahmi weydo waqti dheer bay kugu qaadanaysaa inaad fahanto marka waxa laga rabaa haddii arday wanaagsan aad tahay intaad galaaska dhex fadhido isku day maadada inaad fahanto oo si fiican u fahanto qodobka toddobaad waxa weeyaan waa in markaad galaaska dhex fadhido aad qorataa qodobada ugu muhiimsan macalinku ka hadlay qoraal markaanu ka sheekayno waxaanu la jeednaa lama rabo lecture-ku jeedinaya macalinku inaad wada qorato lama rabo sababtoo waxay tahay laba maskaxood ma lihid maskaxaad macalinka ku dhageysato iyo mid aad ku qorto ma lihid maxaa laga rabaa macalinku markuu darsiga sharxayo inaad qorato inta ugu muhiimsan ee uu sheegay daawada qodobka 8aad wuxuu yahay waa qodobada lafdhabarka question waa inaad macalinka weydiisaa galaaska dhexdiisa waxa la wixii kugu taagan su'aal kasto kugu taagan ha kala xishoon macalinka bartaa ku weydii wixii ka mugdi kaaga jiro bartaa ku weydii waxa inta ku raacaya ka qayb qaado discussionka galaaska ha aamusin sababtu maxay tahay intan aad wax baranaysid galaaska ku jirto waa inta la rabo inaad noqoto aftahan waa inta la rabo inaad codkor noqoto waa inta la rabo inaad soo baxdo waa inta la rabo inaad mawaahibtaada aad soo saarto weeyaan haddaad galaaska dhex aamusnaato maxaa lagu garan karaa inaad qof soo bixi kara aad noqoto waa inaad hadashaa waa in su'aal weydiisaa discussionka waa inaad ka qayb qaadataa fikirkaaga waa inaad cabirtaa waxaasoo dhan waa loo baahan yahay soo baxaan laakiin usluubka isticmaalaysaa waa noqdo usluub aad u qiimo badan oo qaab wanaagsan macalinka aad wax u weydiinayso oo aanay ahayn mindi ku taag qodobka 9aad daawada wuxuu yahay haddii aad rabto arday wanaagsan inaad noqoto waxa laga rabaa waqtiga inaad nidaamiso waqtigaad wax akhrisanayso waa inaad nidaamisa weeyaan wax ku nidaamsan ba aanay jirin oonad garanayn goormaad wax akhridaa oonad garanayn goormaad nasanaysaa oonad garanayn goormaad iska ciyaari kartaa oo waqtigaagu aanu ku kala cadayn waxay maraysaa inaad waxba akhrin maalinta imtixaanku soo dhawaado bari baa la galayaa aad buuga soo qaado adigoon hore u soo fahmin adigoo waxba soo akhrin kadibna imtixaankii aad gasho kadib aad ku fashilanto laakiin waqtiga uu ku nidaamsan yahay oo marka hore aad lahayd waqti aad wax akhrisato oo maalin kasta naftaadu la soo qabsatay waqtiga markay gaadho inay xafiis fadhiisato qolkeeda oo wax ku akhrisato haddaad nidaamkaas soo lahayd imtixaankuna uu ku fududaanaya si fiican waad uga jawaabaysaa dawada qodobka ugu dambeeyaan ku soo khatiminaa wax weeyaan waana qodobka 10aad haddii aad rabto inaad noqoto arday aad u wanaagsan haddii aad rabto inaad guul ka gaadho ardaynimada iyo waxbarashada waa inaad mas'uuliyadda naftaada qaadaa waa inaad ogaataa haddii aad F heshad ku dhacday maadada adigu inaad kugu wacan tahay waa inaad macalinka saarin waa inaad maamulaha saarin waa inaad waalidka saarin waa inaad ogaataa adoo halkaa inaad dhigtay adigoo keliyana aad ka qaadi karto waa inaad joojisaa inaad cid kala dhaleecayso waalidka aad dhaleecayso iskuulka aad dhaleecayso waa inaad joojisaa cabashada waa inaad joojisaa waa inaad maskaxda gelisaa adigu inaad wax noqon karto adigu wax iska dhigi karto meeshaad rabtana aad gaadhi karto haddaad rabto inaad noqoto 10ka ardayda ugu sareeyo sanadkan waad noqon kartaa wax ka hortaagan ma jiro adaa isu haya maantood dadaasho ka xidhanta maantood go'aan qaadato oo tirada waan dadaalayaa nafteeda waan la dadaalayaa ay ku xidhantahay go'aanka haddaad qaadato fulintiisa aad bilowdo waxa la hubaa tobtanka inaad galayso laakiin haddaad tiraahdo tobtankan iyo ma gali karo مواد يقو أذك أنت أصلا كورسا يقو أذك حساب تاساسا كنا سداسا أو ضعب شاب بلوضو أو نفترض أذ كذا عشان وحب أنا قبسن كرين من مجالس وحن كسو ختمنا درس جينا ما أنت أرض يقطع هو وح هذا قيمة بدن ما أنت مدري إنسان وحن ذي شيء جيا أنت أنا عنانتو نقول وقت جدي وقت أنا هين ما أنت يسعنانو ما أنت نقول أن قاضو ما أنت ندالك بلو أنت سيكون كوبين 10 كينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.